wararka laga helayo deegaanada gobolka Gedo ayaa waxa ay ku soo waramayaan in halkaasi qarax miino oo dhulka lagu aasay lagula eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya xili ay marayeen inta u dhaxaysa degmada Luuq iyo deegaanka Yurkud ee gobolkaasi. qaraxa ayaa la tilmaamay inuu haleelay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada Itoobiya kuwaasi oo ka yimid gobolka Bay kuna sii jeeday gobolka Gedo isla markaana waxa qaraxaasi ka dhashay khasaare kala duwan. wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in qaraxa kadib dagaal xoogan uu dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa xarakada Al-Shabaab ka oo socday muddo kooban. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxii ciidamada Itoobiya lagula eegtay wadada xiriirisa deegaanka Yurkud iyo degmada Luuq ee gobolka Gedo. xarakada Al-Shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda bulshada waxa ay ku sheegteen mas'uuliyadda qaraxaasi, waxaana Al-Shabaab inta badan weeraro kala duwan ay ku qaadaan ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom xilliyada ay socdaalka ku marayaan qaybo ka mid ah gobolada dalka.